هذا برنامج كعاو وحنا كوبلا بين آية الله هي إيران يوم مضحضة إيران اسماء أركان موضة حريران آية الله هي تليفون ما هيستو هذا يا إسكو حرا أو سيكل الدبقالة كونا الله كل ما إسجنا الله سو كل ما حكتها سال هذه وحتى دوان مدحوينها إيران وتويري آية الله إيران لما أركو warbixinada la kala qaataa bis shaqada way socotaa hadaba marka ninkan waxa leeyahay dinku dhawaad 40 sano ay saaxiibo ahaayeen Mujtaba Khamenei waaye ninka isaga xogta ka soo qaada madaxda kale u geeyay madaxda kale xogta ka qaada aayatullaahiga u geeyay hadaba ninkaas ayaa hadda waxa leeyahay waa la soo ogaaday hadaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay laga qoray aayatullaahiga Iiraan hadaba telefishinka Al-Arabiya wuxuu leeyahay ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Hussein Daib waxaana la sheegay inuu yahay isku xiraha Mujtaba Khamenei iyo madaxda kale ee Iiraan hadaba marka warbixin la kooban oo laga qoray ninkan waxay leedahay Hussein Daib شخصية وجوده مجتبى خامنئي هذا دمان شخصيات كسامين تقولها إيران مجا حسين طيب وحسيت جوكته وقام وضع متكبدا كوا كله سيدا حرير كأرد حياة السجا آية الله هي مجتبى خامنئي هذا نكن حسين اللي هذا وحو كل شيء مقالة طهران سنة كيكون سجال بقول لحدني سد حدي wuxuuna ka bilaabay waxbarashadiisa diimeed magaalada Qom ka hor inta uusan ku biirin ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan kadib kacaankii Iiraan markuu dhashay intii lagu jiray dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq wuxuu ka soo shaqeeyay guutada la yiraahdo Habib ibn Mazar taasoo la sheegay inay iskula jireen isaga iyo aayatullaahiga hadda kadib dagaalka markuu socday wuxuu qabtay jagooyin taxana ah dagaalka kadib iyadoo sidoo kalena uu madax u soo noqday guutooyin kamid ah ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan hadaba inta lagu jiro ku dhawaad 13 sanadood waxa la sheegay inay aad isugu dhawaayeen isaga Mujtaba muddada ay shaqaaneen waxa lagu sheegay inay dhan tahay ilaa 40 sano inay markaa labadan nin ay saaxiiba ahaayeen way ninkan marka maxaana loo baraanag Hussein Daib muxuu yahay sababta miidiyaha reer galbeedka iyo aad uga hadlayaan maxay waxa la rabaa in isagu marka target laga dhigto godadka meesha uu galayo iyo meesha uu ka soo baxayo meesha uu ku noqonayo macnaheedu waxa waaye Mujtaba Khamenei ku jiro haddii xataa isaga iyo Mujtaba ay saaxiib ahaayeen hadda way la kala cararayaan jaa waa la ogaaday sirtii inuu ninka waxa isaga kala dab qaadaya Iiraan marka ma beeninin run waaye been waaye midna ma dhihin laakiin waa un meesha waxba ku jira miidiyaha la isticmaala dagaalkii miidiyaha qayb ka mid ah Mujtaba la khalkhal galinaya ninka ku imaanayo waa la soconaa waaye marka wareerkaas jira marka waa arki doonaa waa la iskaada bishaan waaye dagaal ayaa maanta dhacay sida ay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan nagta la iska saaray kooxo hubaysan oo ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa dagaalamay hadaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow helay xog ku saabsan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan inay sheegeen inay kala tuureen oo ay kala daadiyeen koox argagixiso ah waxaana la sheegay xubno ka tirsan kooxdaasna inay dileen hadaba weerar ayaa lagu qaaday kooxdan lagu tilmaamay koox argagixiso ah gobolka la yiraahdo Sistan iyo gobolka kale ee la yiraahdo Baluchistan waxaana la sheegay qaar kamid ah kooxdaasi xubnaheeda in dagaalkaas hubaysan lagu dilay marka ma jiro faahfaahin dheeraada oo inta dhaafsiisan oo ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan laakiin waxay yiraahdeen waa koox irhaabiyiin ah macnaha koox argagixiso ay yiraahdeen irhaabiga markuu argagixisada laga wadaa waaye qodobka halkaas kaga gudbayna sidaan shalay sheegaynay
waxaa gaaray sacuudi arabiya ra-iisul wasaaraha bakistan iyo taliyaha guud ee ciidamada bakistan xilli xiisada u dhaxaysa sacuudiga iyo xuutiga ay sii kululaanayso barnaamijkii labaad waa taa kusoo qaadanay xuutiga oo qaramsaday ciidan dhan oo sacuudigu maalgelinayeen oo loogu talagalay inay xuutiga la dagaalamaan oo yamaniyiina waliba goordhow waxaan arkayay afhayeenka kooxda yaxyaa sariic oo hadlaya oo leh tirada ay sheegeen 30 iyo 40 iyo ma ahane boqolaalan qaramsanuu leh marka sheekadaas halkaasay maray haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyey arrinkaa laga qoray haddaba wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay ra-iisul wasaaraha Bakistan ayay booqasho uga bilaabatay sacuudiga iyagoo markaasi kala xaajoon doona arrimo ku saabsan xaaladaha ka soo kordhay gobolka booqashadan waxay qaadan doontaa muddo 3 maalmood ah sida la leeyahay ra-iisul wasaaraha Bakistan waxaa ku weheliya safarkiisa oo la socda sida la sheegay taliyaha ciidamada dalkaasi Bakistan oo markaa isaguna safarka ku wehelinaya wakaalada wararka ee Saudi Arabia ee rasmiga ayaa waxay sheegtay Shariif inuu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jeddah boqortooyada Saudi Arabia waxaana garoonkaas oo lagu magacaabo Malik Abdul Aziz caalamiga ku soo dhaweeyay Saud bin Mish'al bin Abdul Aziz oo ah ku-xigeenka amiirka mandiqada Makka al-Mukarrama waxaana la sheegay in halka loo soo galbiyay oo uu la socday abaanduulaha iyo taliyaha ciidanka Bakistan General Asim Munir oo markaa ay wada socdeen waxaa sidoo kale wafdiga ku jiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Bakistan Ishaq Dar ninka la yiraahdo madaxdii Bakistan oo dhan timid ra-iisul wasaarihii iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyihii ciidamada macnaha waxay ka dhigantaa saddexda nin ee ugu sarreysa waddanka Bakistan inay soo aadeen Sacuudiga maadaama Sacuudiga iyo Bakistan waxay kala socdeen heshiis isdifaacida heshiiska markuu dhacay kadib weerarkii waxaa dhacay Iran lagu qaaday Febraayo 8 sanadkan marka qaab loo difaaco Sacuudiga iyo qaab kale wuxuu dagaal toos ma Sacuudiga gooni wax ku ah ma sidee marka la yeelay xuutiga asaga dagaalamay Bakistan maxuutiga la soo galaysa dagaal heshiisku muxuu ahaa wixii oo dhan hadda waxa leeyahay waxa lagu sameeyay heshiiskii dib u eegid bal waa la habaynayaa heshiiska marka waa arki doonaa wixii natiijo arrimaha ka soo baxay ugu dambeyntii barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka Uganda ayaa sheegay inay meel mariyeen in ciidan Ugandese oo caalamiga loo diro ciidamada caalamiga lagu daro Gaza ka howlgalay Al-Yasin iyo Hamas iyo dhulkaas ka shaqeynayeen war meeshaas ay u aadi kartaan sidee wax u jiraan khibrada ku soo qaadanayeen al-shabaabka Soomaaliya iyo Soomaaliya meelaha ciidamadeedu khibrad badan ay leeyihiin hunguriga raadinayeen markaan Ugandeska Soomaaliya iridkeedii soo xirba rabo lacag loo waayaa leeyahay Museveni iyo kooxdiisa mashruuc kale furteen Gaza tagayna ay ku leeyihiin marka meesha lacag lagu bartay lacag ciidan nabad ilaalin lacag lagu qaataa haddaba marka aan tuso wargeyska la yiraahdo Al-Quds ayaa wuxuu qorayaa baarlamaanka Uganda ayaa isku raacay in la diro ciidan Gaza kuwaas oo qayb ka noqon doona ciidamada caalamiga ah halka ka shaqeynaya haddaba maanta oo Khamiis ah ayaa la sheegay xukuumaddu inay baarlamaanka weydiisatay in markaa arrinka la meel mariyo waxaana la sheegay baarlamaanka inuu arrinkaasi ogolaaday haddaba waxaa soo gudbiyay wasiirka gaashaandhigga Uganda ayaa soo bandhigay ama u gudbiyay baarlamaanka codsigaas in ciidamadoodu ay ka mid noqdaan ciidanka caalamiga ah ee qaybta ka ah ciidamada nabad ilaalinta ee Gaza ka shaqeynaya ciidankan marka buuq fara badan ka taagan ma ogola nimankan Xamaasa soo kale Morocco hadda waxaan arkayay iyaguna in ay dalbadeen meel ay ciidankooda degaan qayb ka yihiin taliyaha guud ee ciidamadan la isku dardaray ee halka ka shaqeyn doona waa Mareykan marka hawlahaas waa igu soo bood ma Soomaaliya oo kala ma meeshaas waa biyo badan waa la iscabsiina Al-Yasin baa la yiraahdaa Ugandes meeshaas marka ma sahlana haddaysan Hamas raali ka noqon
wallay ka taan wax badan la kala qaaday hawshaas halkaasay maraysaa barnaamijkii caawana waa naga inta aan mar kale kulmayno la gareeyo oo shargareey barnaamijka haddii alla idmo iyo barnaamijyo kale